munaasabad lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeys. Faisal Maxamed aadan FIFA oo ku sugan Hargeys ayaa warkan inoo soo diray. Caweysin kan balaadhan ee dhicitaankiisa qurxoon loo soo yeegalay markaana uu reebana soo dhaweyntii sidoo kale bogaadinta gudoomiyaha cusub ee banka dhexe ee Somaliland ee dhawaan soo magacaabay madaxweyne Bixi aqoya Ali Ibrahim Baghdadi ayaa habeenkii xalay lagu qabtay hotel Ramaas ee dhanka bari magaalada Hargeys. Munaasabadan oo qabanqaabadeeda guud ay lahaayeen dhalinyaro iyo sidoo kale aqoyaana ka soo jeeda gobolka Daadmareed ayaa waxa wada jir uga soo qayb galay salaadin cuqaal duqeyti wax galad wasiiro hore iyo sidoo kale aqoyaana dhankooda si weyn ugu faraxsana magacaabida gudoomiyaha cusub ee banka dhexe Somaliland. Waxaana halka ugu horeyn ka hadlaysa markaana faahfaahin dheeriye ka bixiyay ahmiyadda gaaraan ee munaasabadan u leedahay iyo dhankooda sida uga go'an tahay taageerada iyo sidoo kale garabsiinta gudoomiyaha cusub ee banka dhexe. Cabdi Salebaan Maxamed waa gudoomiyihii qabanqaabada xafladan. gudoomiyaha cusub inagoo ah aqoonyahanka gobolka Daadmareed mar walba waxaan jecelnahay anagu inaan soo dhaweyno madaxda qaranka meel kasta oo ay ka soo jeedaanba madaxdeedii mar walba waxaan jecelnahay inaanu garbahooda taagnaano anigoo ku hadlaya aqoonyahanka iyo dhalinyarada Somaliland aad baan soo salaamayaa marti sharafta iyo madaxda ka soo qayb gashayba. dhankooda waxay iguna halka hadalka isaga daba maray wasiirka hore wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda madaxweyne Silaanyo Axmed Faarax Adarre, wasiirka hore wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda madaxweyne Daahir Yaale Kaahin Siciid Sulub Maxamed, gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Maxamed Shukri, Sultan Cabdiraxmaan Awgood oo kamid ah madax dhaqameedka ugu waaweyn ee Somaliland. waxna kamid ah hadalladoodii sidan. أول شيء ده علي إبراهيم جامع والله مجاعبه حلك بانك دحى حل ظروف أدق جرتو إلهي وحنا كبرينا إن إلهي سببتي سإن جسوليو سحر بركة يظروفها مارتي إنفليشن كان ما أنت تاجن أما الحوينا بني لو تسياسة مع بعض هو جرايو ده أنا بقول قرار كلام السعي أنا يحب بدل ما يعرف هنا وأنا كتاب بينجرنا عد ما ناس إنه ما نادورني لكن وحنا نقول لنا قاعدين الله شغالنا يمكها برضو كرسي كفرديو الله شغالنا taladeeda aanu gudbinaynaa waxaanu ku nidhi wixii qaranka waxyeelayaanu ka ilaalinaynaa waxa wanaagsan oo qabtaan ku hambalyeynaa waxaanu ku hambalyeynaa waxa kamida inaanu oranin kaas waa xisbiga kaas waa reer hebel ee qof kasta halku isleeyahay qaranka waxba uga tari karaya inuu u magacaabo xisbiga doonaha ku jira hadii la nafteeno daayo anu xukuumadda ka mid yahay waxaan hor joogaha hantiilayda gaar ahaan Somaliland ka mid yahay xukuumadda waxaan matalaanu hantiilayda gaar ahaan Somaliland وعد أبو بدني ولا شقين يمعامل يرانيا محوها مركب ولا شقين توصلنا يران دورنا وحنا كمان حكنا دورنا ده الله يرحمه محمد حجراني يعقوب بتربوها سيدو كلا عبد الرحمن تور مركب وحيد أليسون دورنا حكمة الشيوخ وقوة الشباب لا يرد روحي هيان هنتي حوجي وضياش ولا حكمة دي مركب الله بدها هدين المدينة runtii wax badan ama fruit kulbay ayaa wax wanaagsan baa ka dhalanaya oo loo baahan yahay shaqadiisa iyo khibradiisa hadduu aqbalay uu ku mahadsan yahay annagu qoladeedii adee isku xisbiga ahayn na dhinacna waa nooga faano de mar hadii aadaan cidba laga xulano cid lagu baahan waayo horta waa ayaan darhe mar hadii naloo baahday waa ilaa xamdigii inay xul fara badan oo wadaniga inay jireen oo wax qaban karaya ayaa muuqata in kasta oo xisbinimada lagu riixayo tirada de axsaabtuna oo isku dhaweed mucaarad iyo muxaafid oo 45 iyo 55 bay ahayd marka kulli cadaalad halka ka jirtay hadii wax leeno soo celiyay waa ilaahay xamdigii taabtay kor hadii maanta uu xilkii noo hayo de waa inkastoo bangigu yahay bangiga ummadda u dhaxeeya haddana xisbinimadu ka soo baxay marka horta dhinaca bal iska ilooba maanta waa nin qaran waa u dhaxeeya dadka sida uu sheegay gudoomiyuhuna waxaan jecelahay inay kuma degdegine kulli mucaaradku way maayo afka yarooyo waa hakan maaye laakiin waa toosin wixii toosina waa la ogol yahay laakiin waxaan jecelahay bangiga dhexe inay kan leexataano ay barbadaysaa ilaa inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay cagaas u taageen gunaanadkina waxa kulanka soo afmeeray Ali Ibrahim Jaamac Baghdadi gudoomiyaha cusub ee banka dhexe Somaliland isaguna halka ka jeediyay khudbada isugu jirta kaftan iyo sidoo kale door xul siyaasadeed. 5 sanadood baa inoo haray 5 sanadood waxa loo baahay inaynu gacmaha is qabsano qaranka dhisno ninba wixii uu yaqaano uu ku soo biiriyo wadanka marka doorashada la gaaraan inuu halku tagayo isaga ay jirtaa marka 5 years ka hadhay doorashada in qolooyinkina ay aqoonyahanka ee Facebook ku dirra maarta
برينا يرشوا كشان وسووا جيستان وهي ودنا يا قرنك ها يعني أنت وحرك يصير هير وحنا وضع أنت بدنا قوي هذا waxaan ku soo gabagabeynayaa xafladan sida ka muuqata kaarka waxa soo qaban qaabiyay aqoonyahanka dad mareed xaflad kasta aad tagto waxaad arkaysaa reer hebel iyo hadaan hebel nahay laakiin xaflad caawa waxa qabalkeeni baa ka hadlaya dhaqaalihii marka waxaad arkaysaa inuu garaadkeeni koray aynu heer sare gaarnay aad aad nooga mahadsantiin dhalinyarada soo qabasay Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa